filimka wuxuu ku bilaabanayaa gabadhan shidan la yiraahdo oo ardayda u shaqeynayso waxa ku dhayso sanadka dhamaadkiisa adduunyadu way dhamaanaysaa oo waxa dhamaan noolahana way dhimanayaan yuushuna gabadha propagandada iyo beenta ay qaldalayso ay u adkayso weeyaa kadibna basketball ay ku soo tuuraya madaxa ugu dhufanaya kadibna way isdagaalayaan laakiin galaaska ayaa bilaabanaya maxaaninka ayaan imaanaya ardayad cusub ayaan u baraya oo liyan la yiraahdo wuxuu leeyahay maanta ka bilaawda galaaska ay ku soo biiraysaa gabadhan yuushina isla markii gabadha ayaa soo jiidanaysa kadibna innaha ay la raacaya aad ayuu uga helayaa gabadha asagoo ku riyoonaya gabadhan inuu la socdo ayaa siyaan isla markii banooni ku soo tuurayso waxaa kadib yuushu oo jiyaan la hadlayo oo jacayl kala hadlay arma jacayl kala hadlay arkena iyo sidoo liyan shiin ku soo jiida lahaa laakiin yuushu saaxiibkiisa wax jacaylka haba kama yaqaano wuxuu leeyahay inuu jacaylka wax kama yaqaan laakiin filmaanta fiirso ee qorshe meeshaas ka diyaarso siyaan ayaan imaanaysa kadibna waxay maqlaysaa inay arma jacayl ka hadlayaan kadibna waxay leedahay yuushu lagama yaabo inuu jacayl wax ka helo oo dadkii jacaylka loogu talagalay maaha kadibna intuu xanaaqay wuxuu bilaabayaa gabadh inuu hagareeyo oo qorsagaaro ku qabto muddo ka bacdi waxaa arkaynaa yuushu oo gabadha meesha howl kula kulmaayo wuxuuna isku daya inuu la hadlo laakiin cabitaan uu hayay ayuu ku daadinayaa si kam ah kadibna asigoo isku daya inuu raaligeliyo ayuu ka daba cararayaa waa inay isla dhacayaan xiisadda xigta wuxuu isku dayaa inuu raaligeliyo gabadha wuxuuna u soo qorayaa warqad ay raaligelin ku qoran tahay laakiin siyaan ayaa isla markii macalinka ku dacweynaysa yuushu oo xilleeda fowda ayuu fasalka ka wadaa xiisadii kadib yuushu hawshiisa ayuu halka kasii wataa oo nin iyo jabay maahan gabadhii ayuu warqad u geenayaa jacayl wuxuuna ku leeyahay warqaddan akhriso gabadhina arrintaa way kasoo horjeesanaysaa warqaddii ay ka qaadaysaa kadibna waxay samaynaysaa iyadoo akhrin ayay jeexjeexaysaa hortiis ku jeexjeexaysaa fiidkii liyan hooyadeed ayay wacaysaa kadibna waxay leedahay iskuulka iyo bedelo iskuulkan badoonaya inaa sii dhigto laakiin hooyadeed way ka diidaysaa waxay leedahay macquul maahan gabadha keliya 4 maalin ka hor ayay iskuulka ka soo bedelatay guriga aayadeed ayayna joogtaa magaalo kale ayay ka timid marka hooyadeed waxay ku leedahay waa inaad joogtaa meeshaas daawadana qaadataa maalintii xigtay yuushu gabadhii ayuu arkayaa kadibna wuxuu bilaabayaa inuu raaligeliyo waxyaabihii hore u dhacay laakiin liyan shiin maba taqaano oo waxay leedahay weligii kumaan arag maxaa rabtaa kadibna wuxuu isku dayaa inuu soo xasuusiyo usbuucii hore wixii dhaar maray laakiin waxay leedahay waxba kama xasuusto waxaas ay sidaadaba imood xiisadda kadib yuushu iyo saaxiibkiisa ayaa waxay go'aansanayaan inay gabadha daba kacaan sababta ay noocan u samaynayso iyo waxyaabaha ku kalifayo shiyaan ayaana ku soo biirayso kaliya uma soo biirayso jacayl ay qabto jiyaan ee raacidiisa oo waxay la yaaban tahay iyada gabadha liyan markay la kulantay oo ay xasuusatay laakiin sababta wiilashu xasuuso weyse saddexdeeda gabadha ayay soo daba kacayaan kadibna waxay imaanayaan iyadoo meel cidlaa kaligeed fadhido gabadha marka hore inay la hadasho wiilashii way diidaysaa laakiin kadib waxay go'aansanaysaa barnaamijka iyo dhibaatada jirta inay ka hadasho una sheegto problemka khaasatan iyada haysto waxayna u sheegaysaa inuu hayo cudurka post-traumatic la yiraahdo oo qofka uu hilmaamayo wax walba uu sameeyay iyo wax walba uu yaqiinaba waxayna leedahay isniin walba markii la gaaro isniin wixii ka horreeyay waa hilmaamayaa kaliya dadka hilmaamayna waxa weeye leedahay hooyaday iyo aayaday maxaa yeelay familkayga waa kuwaas shianjina waxay leedahay iga taga maxaa yeelay cidnama doonaysa inay saaxiib la noqoto qof noocaas qof lama saaxiibayso yuushu ayaan dhahay fursadna sii oo hal isbuuc ayaan asxaabtaada naqanaynaa kadibna waxaan bilaabaynaa inaan kusoo xasuusino waxaan kugu kalifaynaa inaan mar walba soo xasuusto asxaabtaada naqano weligaa kadibna yuushu wuxuu bilaabayaa inuu la ciyaaro cuntada oo la kariyo meel walba ay aaday gabadha oo la aado buug xataa uu qoro oo xasuus magacyadooda iyo waxaas ku qoran yihiin si ay u hilmaameen haddana isniinta kale markii la gaaro waxay bilaabayaan inay sheekadii hore ku soo celiyaan ciyaartii iyo baashaalkii iyo waxay la sameeyeen isbuucii hore si ay gabadha u soo xasuusato laakiin gabadha way diidaysaa ilaa ay maalin ka aragto asigoo baaskiil wato oo baaskiilka ka jabay kadibna farta asigoo sameyn raba farta ka dhaawacay kadibna intay yara ka xumaatay ayay imaanaysaa waxayna leedahay asxaab waa naqanaynaa adiga asxaabtaadaba maadaama uu guul ka gaaray gabadhan inuu saaxiibtinimo ka samaysto buug ayuu diyaarinayaa notebook oo wax walba ay ku qoran yihiin kadibna waxay isla aadayaan saqafka kale iyo iskuulka yuushu iyo shianliina waxay bilaabayaan inay waqti isla qaataan goobtan iskula qaataan kadibna labadii kale oo asxaabtooda ayaa ogaanayo meesha ayagana u imaanayaan kadibna ayagana waxay ka codsanayaan in saaxiibtinimada ay kusoo darto liiska wayna ka ogolaanaysaa waxayna ka qaadaysaa sawir ay iska wada qaadayaan afartooda kadibna goobta bannaanka ee dawladda ay sawirradooda ay ku dhijinayaan si ay xasuus ugu noqoto maalintaas laga bilaabo waxay noqonayaan saaxiibo aan la kala goyi karin wax walbana isku diyaar ah si walbana isku caawinayo isniin walba shianji way hilmaamaysaa asxaabteeda oo ayna xasuusinayaan ayagana yuushu jiyaan iyo siishayna waxay isku dayayaan mar walba inay soo xasuusiyaan wax walba ay xasuusanaysana way sameynayaan isniin walba maalin maalmaha ka mid ah ayagoo sheekaysanaya ayaa waxay isleeyihiin iskuulka markaan dhammayno intay ku dambeynaysaa jaamacadday dhiganaysaa shiyaanna waxay leedahay jabijinaya waxaa ka baranayaa jiyaanna wuxuu leeyahay waan raacaya adiga meeshaas joogta ayaa aadaya liyan shiina waxay leedahay psychologist ayaan rabaa inaan noqdo
doktorka cilmi nafsiga yuushuna wuxuu leeyahay aniga imtixaanka ma baasimayay kadibna waxay ku leeyihiin nin waxbaro waxa iska daayniye jabka ee dadaalka saar waxbarashada maalmaha kamid yuushu ayaa class ku dhex hurday asxaabtiisana ma ka kicinayo ka tagayaan kadibna markuu soo kaco warqad ayuu arkay warqada wuxuu soo qaaday platinumka uu soo qaaday markuu umaadana surprise ayuu ku arkaya meesha lagu diyaariyay waxaan halkan ka ogaanaynaa yuushu dhalashadiisa maanta ay tahay dhalashadan ay xaflad u diyaariyeen asxaabtiisa oo lama filaana waxaan leeyahay saddex waxyaabo niyeeso waxaan leeyahay waxaan niyeestay in imtixaanka aan dhaafno aan baasno liyaanshina maskaxdeeda u soo laabato tan saddexaad inuu sheegin waxa imaanayo takooridka isguulka ayuu ka cabsanayo inuu qabto ay afartooda wixii diminayaan halka kadibna tirishada ay ka baxsanayaan siyaan iyo jiyaan ayaa meesha ku haraya kadibna meel ay ku gambanayaan ayagoo jecel inay ku dhexmoodo u marayso sidii isugu dhagan yihiin yuushu iyo liyaanna meesha ay ka cararayaan kadibna intay cararayaan ay dhacayaan waxayna ku siganayaan inay ishumiyaan liyaanshiina ayaa waxay siinaysaa hadiyad yar ee u haysay si uu midda saddexaad uu sheego kadibna wishkayga saddexaad waxa uu leeyahay inaan jaceylkaada mar walba ahaado noloshayda inta ka dhimanna aan garabkaada ahaado laakiin liyaanshii waxa uma dhahayso intay indhaha taagta ayay meesha ka cararaysaa kadibna cabaar ayay oynaysaa isniinta ayaa haddana la gaarayaa asxaabteeda waxay isku dayaan inay soo xasuusiyaan waxayna ku leedahay maxaa iga doonaysin nimayo ani idama aqaanay dhaaf ma idiga lehatiin waxayna halkan ka ogaanayaan notebook inay iska dhumisay kaasoo asxaabteeda ay ku soo xasuusi jirtay hadda laakiin ma doonaysa inay la hadasho yuushu banateriyanka inuu buuqyaal u malaya ayaa u cararaya kadib markuu tagana wuxuu arkaya inay loo garaysataa meesha silsilo weyn ayaa ku xiran minan la geli karo liyaanshiina asxaabtii waxay ku leedahay ma doonaya in asxaab wada naqano ee nimayo idhaaf iga leexda yuushuna wuxuu ku waalanayaa buugga raadintiisa isku xiisada hatii uu goonayaa sidii uu raadinaya buugga liyaanshii ayaa markaas wacaysa kadibna weji ayay waxay ku leedahay nimayo iga leexa ma doonaya inaan madama kula hadlo wayna ka tegaysaa wiilka asigoo argagaxsan oo yaabma wax meesha ka khaldan ayuu soo hayaa kadibna isbitaal ayaa la geynayaa iyadoo kooxan waxay samaysay ayay isbitaalka ugu imaanaysa laakiin hooyadeed uma ogolaanayso liyaan inay gudaha qolka u gasho waxayna ku leedahay waxaanu iska ilmaamo wixii dhacay marka waxaana xooga saartaa waxbarashadaada keliya liyaanshii guriga markay usoo laabato buuggii ayay soo bixinaysaa oo buuggiyeeda ay walba haysay waxaan halkan ka ogaanaynaa inay waxba hilmaamin oo yuushu saaxiib ayna yihiin ay og tahay ayna go'aansatay inay xiriirka u jarto iyadoo ka cabsanaysa inay jeclaato waxaana markaan arkaynaa liyaan oo joogta iskuul ay hore u dhigi jirtay lana joogta kaba suuju la yidhaaho banooni ayaa meesha u soo jiibinayo waxaana banooniga soo gaba oo qolka soo galayo yuushu liyaanshii iyo suujuna saaxiiba ayay noqonayaan laakiin suuju ayaa yuushu jeclaanayso liyaanshii saaxiibteed si ay u caawiso si ugu soo dhawaysa yuushu baaskiilkeeda ayay jebinaysaa si uu baaskiilku ugu qaado wuuna u qaadaya iskuulka ayuu u qaadaya suuju sidaas ayana saaxiiba ku noqonayaan laakiin waxaan arkayna waa wax hore loo soo dhaafa dhammaan kadibna isla buugga ayay inta ku qarto ayay meesha gelinaysaa iyadoo rajaynaysa yuushu inuu maalmaha ka mida u ogaa doono runta waxay tahay jiyaan iyo siyaanna waxay gabadha u arkayaan inay nooc kale u dhaqmayso kadibna baaritaan ay ku bilaabayaan kadibna isla markii waxay ogaanayaan liyaanshii iyo yuushu inay iskuul isla dhigi jireen waqti dheerna ay yaqiineen waxay kale la kulmayaan ardayd iskuulka la dhigi jirtay kadibna waxay ugu digaysaa liyaanshii inay ka fogaadaan ay gabar khayaanle ay tahay inay iska fogeeyaan kadibna liyaanshii ayay la kulmayaan waxayna leedahay aniga wax problem oo xasuus ma jiro laakiin ma doonin inaan asxaab idan la noqdo waxayna tiri wax dhibaatada xasuusta haysato aniga maahan ee yuushu ayaa anigana hornoo hilmaamay kadibna waxay u sheegaysaa sheekadii dhacday si ay u fahmaan arrinta siday u jirto sanad ka horna dhacday liyaanshii suuju iyo yuushu saaxiibo dhaba ay ahaayeen waqti walbana isqaadi jireen ayadoo weekaniya ay waxay aadayaan fasax u aadayaan leeg ama hara sidaa u taqaano kadibna labada gabdhood doon ayay raacayaan gudaha ayayna u galayaan xerada suujuna yuushu ayay warqad u qortay meesha unu dhigtay kadibna way istaagaysaa way fiirinaysaa inuu akhrinayo in kale kadibna maadaama doonta ay yarayd culeyskeeda iyo qaadigiisa wayna gadoomaysaa doonta meesha ayayna ku dhacaysaa liyaanshiina ka dababoodaysaa waxay isku dayaysaa saaxiibteed inay badbaadiso laakiin labadooda dabaal ma yaqaanin kadib qaylideeda oo maqlay yuushu ayaa kusoo boodaya biyaha wuuna soo garaayo wuuna isku dayaa labadooda inuu badbaadiyo laakiin waqtigu aad ugu soo dabdhacay maxaa yeele labadooda aad ay u quseen yuushuna fursad wuxuu haystaa hal qof inuu soo badbaadiyo marka hore liyaanshii ana u dhawada uu soo qabanayaa halka suuju ay quusayso aan dhimanayso meesha ku dhimanayso yuushuna wuxuu isku sii dayaya inuu gabadha soo qabto laakiin asiga ayaa madax wax ka gaareen kadibna dhiig badan oo ka baxa ka bacdii meesha ayuu ku suuxayaa yuushu isbitaalka markuu soo naaxo wax walba oo dhacay wuu hilmaamayaa oo amniishii ayaa ku dhacayo dadkii uu yaqiina xataa liyaanshiina wuu hilmaamayaa liyaanshiina waxay ku soo booqanaysaa isbitaalka laakiin ma aqoonsanayo hooyadiis ayaan dhahaysa wiilkii dhibaato ayuu ku jiro ayaa qasin naga leexo dugtii suuji familka suuji ayaa liyaanshii ku eedeynaya gabadheedii inay dhimashadeeda ka dambaysay gurigooda ayayna kasoo raacdaynayaan
kadibna ardayda iskuulka ayaa bilaabay liyaanshii inay takooraan waxayna leeyahay qof xun ayaa tahay saaxiibtaa darta ayuu dhimatay yuushu markuu reystana magaalo kale ayuu soo wareegsanaya oo magaaladan ayuu markaa usoo korayaa maadaama liyaanshii takooridda iskuulka iyo fiduweynta aad ay ugu badatay way kasii daraysaa oo depression ayaa ku dhacay xataa dhakhaatiirta psychologiga waa caawiyeysaa si dhibkaan loo xaliyo liyaanshii hooyadeed waxay ogolaanaysaa inay magaalo kale wareegto aayadeeda ay u tagto gabadha waxay rabtay nolosheeda inay fresh u bilaabato laakiin waa isku argagaxda markay aragto yuushii maadaama u xasuusan oo asigoo jecel u qabno uu weerar ku soo qaaday waxayna saa darteed ayay u diidaysaa inay la kulanto lana saaxiibta u diidaysa uguna soo horjeeday arrintaas markii liyaanshii yuushu isbitaalka ku booqatana hooyadeed ayaa ku dhahaysa iska hilmaan ninkan oo noloshaadii hore ayuu kusoo xasuusinayaa siyaan iyo jiyaan maadaama qisada ay fahmeenna waxay ku raacayaan liyaanshii arrinteeda wayna ka hor istaagayaan inuu yuushu la kulmo fiidkii saddexda asxaabta ay iskuulka korkiisa saaqafka hore ayay korayaan kadibna waxay sugayaan gabadhi sidii sheegaysay dunyada inay gabagaboonayso laakiin sidii wax isbedelaya ma jiraan qababil ka bacdi waxaa la gaaray imtixaanka iskuulka ardaydan iskuulka imtixaanka ay isku diyaarinayaan baasitaanka imtixaanka kadib shiyaan jaceylkiisa ayuu siyaan u sheeganayaa jaceylkan labada dhinac wuu ka jiraa laakiin wuu kala soo daahay maxaa yeelay gabadhi waxay hore u go'aansatay inay Australia jaamacad u aado shiyaan laakiin taas waxba u arko wuxuu leeyahay jaceylkeena inaan kala fogaano waxba mu dhibaysa taas wax naga istaagi karo inuu jaceylkeena sii wadatana ma jiro maalinta xigtay hiyaanji ayaa wuxuu u sheegayaa yuushu saaxiibkiisa inuu gabadhii raacayo siyaan ahayd wuxuuna yuushu kula talinayaa inuu liyaan iska hilmaamo laakiin yuushu ayaa xanaaqayo kulatiga ayuu qabanaya markay isdagaalaanna biyaha iyo iskula dhahayaan kadibna yuushu wuxuu bilaabanayaa inuu soo xasuustii hore wax walba hore u dhacay kadibna isla markii wuxuu go'aansanayaa liyaanshi inuu la soo hadlo oona u soo cararaya gurigeeda markuu maduwa soo dahay oo mar hore ay gabadha ka tagto gurigeedii hore ayaana ku soo laabatay gurigana kama baxdo oo hooyadeed ay iskala joogtaa keliya marmaha ay soo baxdaa waxayna u timaadaa suuji qabrigeeda ayay timaadaa nolol keliya ayay gashane cid la hadlaysan ma jirto kadibna mararka qaar doon ay iska soo qaadatay ee meesha timaada asiga isaga dhimato yuushuna maadaama uu saaxiibtiisa uu heli waayey wuxuu go'aansanayaa inuu raadin u galo saaxiibtiisana uu ka harayaa shiyaan ayaa yuushu u imaanaya kadibna wuxuu u sheegayaa Britaniyaanka in madhow la duminayo halkii afartooda sawirkooda uu dhiganayay xasuustoodana tiilay yuushii magaaladiisa hore dib u noqonaya qabrigii suuji ayuu aaday kadibna suuji walaalkeeda ayuu meesha kula kulmayaa walaalkeeda ayaa gurigeeda u soo wadaya si murugta iskula qaybsadaan kadibna warqadihii ay haysatay ay qortay iyo sawiradooda ay dib u feer markay casheynayaan ayaa suuji aabaheed iyo hooyada waxay ku leeyihiin yuushu iska hilmaamo noloshii hore oo noloshada hore u wada gabadha way tagtay gabadha dhimashadana wax qalad kuma lihid kadibna warqad uu soo qoray ayuu liyaanshii usoo tuurayaa markay akhrisana waxaa ku qoran inuu iyada weligiis jeclaa suujina ugu soo dhowaanayay si uu iyada ugu soo dhowaado maadaama markaan runta ay ogaatay baliteeyaankan la dumi rabo magaaladii ayay ku soo laabanaysaa gabadha way soo cararaysaa gurigiisa ayayna ka weynaysaa kadibna iskuulka ay ka raadinaysaa meeshay wada fadhiisan jireen laakiin baliteeyaanku markay timaado inay xiranta ayay arkaysaa yuushiina uu meesha joogin laakiin meel aan ka fogeyn ayuu fadhin yuushu oo aad ayuu ugu farxayaa markuu arkay inay u timid kadibna labadooda waxay ballan ku qaadayaan suuji inay weligeed tilmaamin iyo haradii noloshooda inta ka dhimanaya xasuustaan kadibna jaceylkooda ay isku sheeganayaan hab iyana siinayaan habeenkiina asxaabtooda sidaa ula kulmayaan fadlan hadda halkan nala soo gaartay subscribe noo saar haddii hore noola joogtana laagtii sheerta naga hilmaamin saaxiib bye waa inoo kulan dambe